Assalaamu calaykum. Magacaygu waa Cabdul. Waxaan ahay 10 jir. Haddii aan sheekadayda kuu sheego, aniga waxaan aad u necbanahay inaan afkayga buraashto. Yaa waqti u haya masquul inuu galo oo maalin walba habeen iyo subax oo afkiisa u buraashto. Meesha af laga buraashan lahaa, anigoo TV iska xayaaro ama banooni banaanka kusoo xayaaro ayaa iga fiican. Habeen, subax, masquusha gal, afkaaga buraasho ay igu wareeriyeen hooyaday aabahayga. Waa waqti dhumis. So marka maxaan sameeyey arrintaas si aan ugu badbaado? Marka hore, cadigayga ama buraashkayga waan iska tuuray. Hooyaday aabahey mar walba i weydiiyaan been ayaan u sheegi jiray. Laakiin waxa igu dhacay mogtahay waa qof caloosha feer loogu dhuftay oo kale. Urta afkayga soo baxaysay ayaa wuxuu noqday dhibaato aad iyo aad u weyn. Waxaan isku dayay inaan isticmaalo xanjo inaan calajiyo ama biyo inaan cabo, laakiin saaxiibadeeda iyo macallimiinteeda qof walba wuu gartay inaan ahay afka inuu aad iyo aad u uraayo. Waxaan noqday ardayga keliya iskoolka ee loo yaqaan waa arday oo wata hub oo laga wada ordaayo. Muxuu ahaa hubkaasi? Waa urta ka soo baxaysa afkayga. Qof walbana wuu iga fogaaday. Saaxiibadeeda oo kalaaska igula jira xataa way diideen agteeda inay fadhiistaan. Ilkahaygana waxay noqdeen jaalo. Dadka oo dhan ayaa iga wada orday. Inaan seexdo iyo inaan wax cuno ayaa wuxuu noqday sida qof Olympic marathon ordaayo oo kale. Qaybta ugu xun waxaad mataqaanaa? Waxaan diiday inaan nafteyda runta u sheego. Nafteydii ayaan ka qariyay runta inaan u sheego in dhibaatada ay tahay afkayga inaan cadaysto ama buraashto inaan diiday. Laakiin ma ogtahay waxay ugu dhacay maalintii ugu dambeysay. Hooyaday ayaa i qabatay. Waxay ii samaysay balan oo dantiista ah. Anigoo dhan hal mar ayaa murug iyo walaac isku kay darsamay. Waxaan noqday qof alarm clock lagu xiray oo kale. Waxaan arkay dantiistihii oo wada biinsi aad u weyn oo ilkaha iga sii waayay oo kale. Markaasaan ku qayliyay, hooyo iga daa. Hooyo waa ka baqayaa dantiistaha ha ii wadin. Laakiin hooyadayda dhowr arrin oo run ayay ii sheegtay. Waxay ii sheegtay ilkahayga inay yihiin wax laga cabsado oo laga baqo oo ay tahay wax aan laga doodi karin in ilkahayga wax laga qabto. Markaas waxay ugu tiri been kale iyo brush kale oo dhumise ma jirto. Maanta waxaad aadaysaa dantiistaha. Markaasay ii jiiday dantiistihii. Dantiistaha wuxuu ahaa Dr. Cali. Dr. Cali meesha aan ka fiilahay inuu biinso wato oo ilkaha iga sii siibo ayaa wuxuu u ahaa qof aad iyo aad u fiican. Wuu isoo dhaweeyey. wuxuuna xirnaa dhar cadcad oo dadka ay xirtaan oo dadka daaweeya. Markaas ayaa wuxuu igu qanciyey in uusan i xanuujin doonin oo ilkahayga uu feerin doono uuna wax fiican isiin doono haddii aan si aadaab leh u fariisto. Dr. Cali si fiican ayuu ii daaweeyey. wuxuuna ii shiray filim yar oo dantiista agtiisa yaalay. Filimkaas ayaa wuxuu ahaa dadka ardayda ah ee fiican ee ilkahooda buraashta ee aan cunin waxyaalaha macaanka ah oo ilkahooda aysan ka halaabin oo jaala ka noqonin oo afkooda uusan urin. wax xanuun aan dareemay ma laha. wax pressure aan dareemay ma laha. inta uusan dhammaanin filimkii ayaa Dr. Cali wuxuu ii sheegay inuu ilkahayga dhan ii sifeeyey oo ilkahayga ay ku soo laabteen ilka cadcad oo urkii oo dhan iga baxay. Markaas aan aad ugu mahad celiyey Dr. Cali oo aan iri waad mahadsan tahay. Laga bilaabo maanta 2 jeer aan buraashanaya afkayga. mar dambe afkayga uraaya ma la arki doono. Markaas maalintii kale iskoolka ku laabtay oo dadka dhan wada yaabeen markay arkeen afkayga ilkahayga oo cadcad oo asxaabteeda oo dhan igu soo ordeen ayaa qof walba wuxuu weydiinayay maxay tahay ilkahaasaan u birbirqaaya intee aaday oo maxaa samaysay. Markaasaan ugu sheekeeyey in hooyadeeda ay ii waday dantiistaha ugu fiican adduunyada ee Dr. Cali oo Dr. Cali ilkahayga ii sifeeyey oo uu ka dhigay miraayad ifaysa oo kale. cashirka aan bartay waxay tahay ilkahaaga ha ku cayaarin, dantiistaan ha ka baqin. maalin walbo 2 jeer cadayso ilkahaaga si ilkahaaga aysan jaala kaaga noqonin, godadna aysan kugu abuurmin oo ilkahaaga aadan luminin. tan kalene aad dantiistaha oo iska soo fiiri sanad walbo 2 jeer ama 3 jeer ilkahaaga in ilkahaaga caafimaadkooda aad ku dadaashid aad ay muhiim u tahay. haddii aad lumiso ilkahaagane wax ku soo laabanaya ma ahan. haddii aad damacad inaad batashane xanuun badan ayaa la kulmaysaa.